السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لهيجي قالي سلام كالإلاب يعني عود إنسو مريه سيدي وكلا حاجي جيجي قالي أسجنا سلام ترى عليه هاي محاكى لما أنت أي لسه وداكتي ميعات قصيرة وحنون بدن أيان هاد كور أن لكل مي أيان هاد ما أنت عاوينا إنسو قد بيو أيو إلى إنسو قري marka waxaan leeyahay walaalahayga waalidiinta marmar way qaldamaan marka walaalayaal qasa waxay ahayd tan xanuun badneed maama waxa waaye ilmo weyn dhashay ilmaheeda kan ugu yarna 25 uu gaaray haduusan ka weyneen haduusan marka maamadii odigeedii ma qadariso ilmihiiho aabood ayagoo hortood lagu qadarinaynin asagaa soo shaqaynayo xoolihii ku soo shaqeey aabaha bedelka in la cunsiyo la rabay aabihii xoolihii lama siinaayo dabkaa la saaranayaa ilmihii iyo hooyadood unbaa cunayo aabihii uu iska baahan yahay heer derisku iska marayaa deriskii wuxuu raadinaa niman oo maamayaashooda naagahooda wax u kariyeen uu fiirinaa deriska xilliga ay qadayn lahaayeen uu isku aadiyaa marba maalin ciduu qado isku aadinaa marba habeen ciduu casho isku aadinaa marba subax ciduu quraac isku aadinaya asagana shaqo uma yaro 24 saac wuu shaqeeyaa ma fahantay cidiisina qada lagama siiyo quraac lagama siiyo casho lagama siiyo haduu dhahamaa wax ay siisiin baahi ay hayso socod dabka galaa leeyahay wax karso marka walaalahayga odayga saasa u jeedo beeraha uu ku soo dhintaa wuxuu soo taadaa wuxuu soo hagaajiyaa wixiisa dabka looma saaro saasay tahay qadarin cid lagu ma haayo ilmo weyn u dhalana meeshay joogaan kama canaantaan ma fahantay hatta hooyada hadii aabaha ay hooyada aabaha hadii isku dhacsan yihiin walaalayaal oo aad hooyadiin iyo aabihiin ina sintaan al rabaa aabaha cuntada u gee hooyay aabaha hadii isku dhacsan yihiin aabaha cuntada u gee aabaha qabayskiisa u gee weysiis u gee ma fahanteen hooyo waday hooyadii tahay aabaheen waa aabahee hooyo maxaa ka qaldan anaga labadiina dhasheen in aad dhahdaa la rabaa hooyada ina awaaniso ma fahantay hooyaashu isku mid ma ahan isku qadarin ma ahan hooyaas kulli isku qadarin ma ahan ma fahanteen hooyo wax garada jirto adi hooyo wax garad day ku dhalin mid kale hooyo wax garad hooyada hooyo wax garad day ku dhasho mida hooyo wax garad heenaad ee dhishaa jirto marka waxyaabaha qaar inaad ka qabatid al rabaa baarintigaada in qaladka aad ku raacina marka ilaa amarkiis odaygi wallahi maalimaa kamid ayaa waxa dhacdaalde rooba imaaday roobka markuu imaaday odaygii roobka banaanku jiifay guriga mooba loo ogolabo banaanka asagoo jiifo ayaa roob zaa'id u imaaday meel kale galaayo ma jirto ma fahanteen gurigu ku soo xaraw isdhay roobki markuu saas soo galaayo aqal hooriye ku jireen xaaladaha aqal hooriga albaabka wax bahalka ka raaraco ya bahalkii markuu albaabka saas soo siganay wajiga indhaha ugu dhufatay wallahi been kuma sheegay cabaadkiisi sorry guys ne marka walaalahayga wallahi odayga cabaadkiisi wallahi xaafadayna laga maqla ma fahantay xaafadayna anaga 5 xaafadood oo dhaxaysa cabaadka qaylidiisa xaafadayna laga maqlay marka wallahi billahi markaan sii wareystay xaafadii waxaa la odaygaasa maamada saas ku sameysay aniga hal shay un baa weydiiyay ilmo weyn ay dhashay ilmihii ay dhashay aawaan ku dhig waayo hooyada hadii qaldanto hooyada qaladkaada ina hooyada ka saxdaan raaw aabahayna qabooba dilay rooba ku qarqaraya hooyo waxa sameeynin iska dhaaf aabahayn waay hooyo haduu xumaaday haduu fiicnaadaba anaguna dhalay ma fahantay in aad dhahdaa la rabaa ka qabatid baarintigaaga wallahi ha muzeegaasay saas ay tahay wallahi asoo saas roobki sidii ayuu kurkiisu
uu ku dhamaaday. marka walaalahayga arintaas marka walaalahayga marka taas camal way dhacdaa, arintaas way dhacdaa. marka walaalayaal waxaa rabaa in aad qadarisaan aabiyaashiin, in aad qadarisaan al rabaa. waxyaabaha qaar markay maamooyinka ay sameeyaan waa laga celiyaa. taasaan in kula talin lahaa. midda labaad oo maanta aan iin wado waxaa jirta naaga qaara, waxaa jirta xaajigooda oo joogo marwooyinka la qabaan ka hadlooyaa. xaajigaaga oo joogo ayaa walaahi bilaa xishmad darro odiga oo jiifo ayaa dariska imaanayo. soo gal aa laleeyahay, odigana wuu jiifaa. waa la soo gala, albaabkay ka furaysaa. way soo gashay naagtana u imaanaysa, xaafad sanaadaaba laga imaanayo ayagoo 5 ah. albaabkii guriga soo gal, hebelaa jiife aa laleeyahay. hebelka jiif ma qaymaysid odigaaga waaye. naagtaas laga yaaba adig gurigaada inaad ka furto oo guriga kuu soo gasho, odigaaga oo jiif ay guriga soo galaysa ee meesha sheeka ugu qabanaysa. gurigeeda markay tagto waxay ku dhahaysaa abbaa odigaygaa jiifo, aamus marka albaabka gowgow aa soo dhig, aamus aa lagu dhihi, maxaa odigaygaa jiifo. ayadad odigaygaa jiifay ku leedahay. markay subax walba ay kugu soo kalaysa albaabka ka furaysa gurigaaga odigaaga jiif aad ku sheekeynaysa. damiir ma lihid ya, damiir ma lihid miya? may ka aqli badan tahay. haya waxaa lagu dhihi ciyaalkii jiif aamus ciyaalka lagu dhihi. adig gurigaaga markuu imaado maxaa qayl loo dhigaa? ciyaal maa dhaad markaa guriga gowgow markaa abbaa odigayga joohada uu soo laabo ma dhihi kar. marka walaalayaalow waxaa in leeyahay xaala sharfo, xaali ixtiraamku waa shay muhiim ah. odigaaga adiga haddaad xishmaynin, naag daris ma xishmaynayso. adiga qiimo haddaa u yeelin xaajigaaga, naag dariskaaga qiimo uma yeelayso, naag saaxiibadaada qiimo uma yeelayso. adiga markaad qiimayso unbay saaxiibadaadana qiimayn kartaa, dariskaagana wuu qiimayn karaa. ma fahamtay? xaajigaaga hadduu joogo walaalay xaajigaya joogo ii soo laabay xilliguu baxo. subax hadday tahay, hadday qof dan uu kaa leeya hadday tahay. haddiisaan ahayna sheeko macna daraba waa lii joogaa. allahna gaarsi mar kale. ma fahamtay? timekiisa sii, gurigiisa ha kaa seexdo, qaylada ka kor dhaaf. adba laguma ogolaanayo guryaha kale markaad tagtay. haye midka saddexaada waxay tahay ya, naaga qaara waxaa jirto gurigooda odigooda oo joogo galabkii markuu saas u imaaday xilligu gurigiisa uu ku nasan lahaa ee ayagana naag u imaanaysaaba. saaxiibna waxaa le abaaya marayna nakeen saacan soo bax markaas albaabka la soo garay, nakeen maxaa odigaaga soo ma imaanino? wuu imaaday. ilmaha ayaga asaga sii ilaali dheheen nakeen aa laleeyahay. markaasaa la raacayaa. saaxiib sooma odigaaga jooga loo soo gargaraaxaa, odigayga joohadu imaaday. ilmaha asaga oo soo tagayna keenaba hibalaayo ayuu tag soo qaadinaynaa, hibalaayo kaas ka soo qaadaynaa lagu leeyahay. odigaaga jooga tahay maasiisid walaalay, maanta dhan uu kaa maqnaaye. sharaf xumadu maxaa waaye? ayada laga yaabaa ninkeedu inuu maqan yahay, safar uu ku maqan yahay, naagta ku wareejinaysa, ciddaada kaa bixinaysa. inuu safar jiraa laga yaabaa, inuu xiliyadaas imaanayna laga yaabaa. xilligii uu imaan lahaa ka horay soo ordi gurigeeda imaanay. adiga marka waa gurigaa lagaa bixina maxaa waaye ya? waxaas waa xishmad darro. naaga badan aan ku arkay samaynayaan. hebel waa dhihi karaa, laakiin xishmad darro waaye. inaan magac qaado ma rabo. ma faham? marka walaalahayga qaaliga aan jeclahay waa iga talo taasayte. marka waxyaabo qaar aniga aan samaynayn inay gabdho walaalahayga ay sameeyaan ma jecli. marka waxaan leeyahay marka odayaashiin xaajiyaashiin waxaa la qadariyo. naag ay kaa faa'iidaysanin. naagta odigaaga guriga joogo ay kuu imaanayso, ay kuu sheekaynayso guriga dhexdiisa. markay kaa tagtana way kaa sheekaynaysaa. walaayo gurigeedaan tagay mogta, odaygeedaa jiifee aa lagu leeyahay. marka xishmad darro sooma kuu ahno. odigeeda ma qadariso kan aa lagu leeyahay. saaxiibada hibalaayo aan isla soconi mogta, haddana tan ku wareejinaysan hibalaayo isla soconi macaawo mogta. oo maxaa odigeeda ma joogina? odigeeda dee joogin ilmahay ugu soo tagtay aa lagu leeyahay. adiga marka makuu fiican tahay in mar haddii lagu dhaho hibalaayihiin waa isla wareegayn, ilmihiin odigeeda ugu soo tagtay, odigii oo maanta dhan shaqo ku maqnaa ya. marka maxay ay ku wareejinay? taasna saaxiib lama dhaha. saaxiib xilliga odigaaga joogo
in ay ku wareejisan lahaa saaxiib lama dhaho ma fahantay saaxiib xilliga subaxi odigaaga joog ku imaan inay kuusoo gargaracdo kuusoo istaagayso naag waxaa la arki jiray xishoonayso yaa joogba odigaaga ma jooga hadhoon kuu imaana kaa tegaysaa la arki jiray laakiin hadda nowadays xishmad ma lahana naagaha gabdhaha saas sameeyaan hadda adiga qofka sameyna aad tahay aad samayn jirta ama aad samaynhays hadda waxaas camal sharaf dhaawacay kuu tahay guri oo aabbihi lahaa joogo haddaad u gargaracda aabbaha joogo lagu dhaha ka laabo meesha waxaas xishmo ma ahan ma fahantay xilliga uu imaanayo timeka uu imaanayo 10 saac mise 11 mise 12 xilliga ay tahay weliga ha isku aadinin waa laga xishoodaa waxaas aan ka xishoodno xishoodka aan ka tegin waxaas xishood lama dhaho waxaas xishmo lama dhaho xishmada aan barano ma fahanteen walaalahayga taasaa aan kula talinayaa waa aniga umumicaad waanin jeclahay intaan qisdaan idiin soo gudbiye xumaanna ha loo arkina walaashiina ahay waxaan maanta ana aan ogolaan lahayn inay gabar walaashii lagu sameeyo ma ogoliye waxyaabahaas qaarna ha la iska ilaaliyo wallaahi waxyaabahaas sayta naagaha la wareegaan waan arkay 6 saac iyo 7 saac iyo naag gurigeeda xilligaas u socoto anoo shaqo ku jiraan arkaa marka waxyaabahaas camal shame waay aan iska dhaafno waxaan sayta aanu lagu sheekaysanin nimano badan oo naagaad ka sheekaystaana aad maqle markaa shaqaynayso wax walba waa aad maqle moogtahay nimanku waxay ku sheekaysanayaan waa dareem karta hiblaahi ninkii naagtiisa saas waa xilligaas socota kanay socota saas waa isla wareegto waxaas yaa lagu dhihin walaalayaalo marka aan xishmayno xaalis qadariyo marka haddaad qadarisid adii odigaaga asaguna ku qadarinayaa laakiin xishmada fasta anaga imaado aan qadarin ninkeeday caawidaa lagu leeyahay maxaad u caabidi weyse diintaaba lagu sheegay inaad ka dambaysid in aad xishmaysid ninka ku dhaa naagtay waa raali adoo dhimatay naagtayda jannada waxaa ka xigtaa dhimashada bisaa ka xigta dii lagu dhaho wallaahi bilaahi waa arrin aad qiimo u laha waaye nin hala iin duceeye ka duceysta haalis xishmeeye marka intaasaan iin soo gudbiyey saad u dhagaysataan walaalahayga wixii cusubna subscribe saad u aragtaan muuqaalaha aan soo geliyo oo dambe fiidiyoyaasha kale aa u daawataan subscribe saar gambaleelka furo saa u noqotay daawashooyinka ugu horeeya dadka horaan ila joogayna waa mahadsantiin aad iyo aad ayaan inkaga mahad celinayaa saad ila socotaan aad ii dhiirigelisaan marka waxaan leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.